ku dhawaad 20 ruux ayaa ku geeriyooday qarax duhurnimadii maanta oo khamiista ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku dhow hoteelka Weheliye ee magaalada Muqdisho. Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay goobta oo ahayd meel aad u saxmad badan kuna sugnaayeen dad badan oo halka ka cunteynaya maadaama lagu soo beegay waqtiga qadada. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qaraxa waxaana la sheegayaa in gaariga qarxay wadada dhinaceeda la dhigay halka warar kale oo aan la xaqiijin ay ku waramayaan in maqaayada lagu dhuftay gaariga qarxay. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa halkaasi ka qaaday tiro dhowr ah oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaas oo qaarkood ay ku jireen dhaawacyo culus. Qof goobjoog u ahaa qaraxa ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sharaxay sida ay wax u dhaceen. Shan kamid ah dhalinyarada ka qadeysay ama dadka ka qadeeyay banaanka uga baxay markaas banaanka markaan u baxayna runtii waxaan fariisanay inta u dhaxaysa maqaaxida meesha la qarxiyay qaraxu ku dhacay iyo Weheliye hotel dhexdeeda aniga iyo saaxiibadey kale fadhigaan fadhinay baa qaraxu dhacay meel uu naga xigaan garan weynay runtii burburkii ka bacdi baan ku soo baraarugnay qof kasta caafimaad qaba mar walba aan soo gaarnay inaan caafimaad qabno alxamdulillah ka bacdi aniga saaxiibadeyda qaar kamid ah maqaaxida iga harsanaa oo laba kamid ah dadkii la socday ayaan dib ugu soo laabtay markii wixii ay kala digeen waan fiiriyay laba saaxiibada waa ku dhinteen Allah yarxamo ilaahay naxariisto dhimashada kale aan arkayna indhahaygu saarana shan kamid ah kale ahaa in la 7 qof oo labada saaxiibada kamid ahaayeen dhaawac ma sheegi karo ma cadeyn karo intay ahayd alxamdulillah waa saasa wax u dhaceen runtiina de maqaaxido restaurant Bilsan in Soomaaliyeed oo dad ganacsatada iska lahaa kamid aha meel bulshadu iska fariisan jirtay bay ahayd waliba qaar koox wariyaal meesha waa ku fariisan jireen runtii maanta ani kaliya waa ka joogay tiimkay saxaafada laakiin alxamdulillah waxay ahayd meel aanu ku baashaalo de lagu caweeyo ama lagu waxa laga cabo bay ahayd maqaaxi runtii de aan dadku isugu yimaadaan bulshadu oo kamid ah wadada Makal Mukarrama maqaaxida Bilsan baa la dhigi jiray ma santiin muddo 7 gudaheed waa qarxii afraad ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana muddooyinkan soo badanaya qarxiyada ay magaalada ka geysanayaan ururka Al-Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay qaadayso tilaabo wax looga qabanayo xaaladda si xumaanaysa ee amniga ee magaalada Muqdisho.